studygan waxaa nagu dhaliyay laba arrimood. Arrinka koowaad waxa waaye oo runtii aan laga gudbi karin muhiimadda ay golaha wasiiradu u leeyihiin governance-ga ama dowladnimada Soomaalida. Dastuurka waxaa ku qoran inay yihiin golaha taladu ka go'do. Saasaa ugu qoran, yani artikalo cadcad ayaa waxay sheegayaan taladu waxay ka go'daa oo maaragtay highest executive body-gu waa golaha wasiirada. taa horta goluhu iyo muhiimadda ay leeyihiin runtii waxay anagana tusay in goluhu uu maskaxda bani aadamka qofka ah meesha uu maskaxda uga jirto ayuu goluhuna dowladnimada uga jiraa. Marka golaha hadduu sidii la rabay u shaqeey waayo dowladnimada inteeda kalena ma shaqeynayso. Marka taa runtii baahi ay weyn ayaan u aragnay in laga qabo. sidaa daraadeed waxaan isniri bal horta golayaasha kale inteedaan ka bilaabin waxaan qabnaa study kale oo baarlamaanka ku saabsan oo ayadana aan u aragno muhiim mid dastuurka ku saabsan waxaasoo dhan way jiraan laakiin waxaan isniri bal meeshan hadda awoodda la hormariyo. taa waa taariikhda iyo ujeedada nagu dhalisay inaan samayno daraaso oo ku saabsan golaha wasiirada in la baaro. Marka anaga golaha waxaan u aragno ma aha shakhsiyaadka markaan waxaan fiirinaynaa councilku awoodaha uu leeyahay regardless of cidda markaa fadhida golaha tala ka go'daa. marka taa waa midda labaad oo aan isleenahay waa muhiim bay kasii dhigtay arrintan markaan fiirinay taariikhda golo wasiiro samaynta iyo dhaqanka golayaasheenii wasiirada soo maray ay samayn jireen ayadana waxaan isniri malaha waa dayaca ka jira arrintan wax ka dhaha. qodobka saddexaad waxaan weynay wax research ah oo si qumaati ah looga baaray oo looga soo jeediyey maaragtay golahaas. waxaa kaloo xiise leh xataa waa yar yihiin istaadiyaalka laga sameeyey baarlamaanka. marka waxyaalo kale oo arkaysaa laakiin golayaashii taladu ay dalka ka go'day si fiican looma istadi garin. marka saddexda arrimood oo isu tagtay ayaa nagu kaliftay. mathal ahaan waxaan qaadanay marka laba normalina istadiyaalka aan samayno waxay ku salaysan yihiin labadaa un midkood inaad waxaan document analysis la dhaho in dastuuradii iyo shuruucdii jiray ama soo maray dalkan content analysis lagu sameeyo oo nuxurkoodii si fiican loo baaro. waa research method la yaqaano oo archival ayaa la yidhaahdaa iyo in dadka markaa wax lagu tuhmaayo oo xoga maaragtay la wareysto la yiraahdo bal arrintan ka waran maxay kula tahay. marka labadaasaan iswaafajinay. labadaa kadib runtii waxaa mahad fiican leh oo qayb weyn researchigan ka qaatay Cabdirashiid Xaashi oo horey hay-adan uga ahaan jiray madax leadna ka ahaa runtii aad iyo aadna uga shaqeeyey muhiimadeedana muddo dheer ku baraarugsanaa. waxa kale oo asna nala jooga yarkii hadda quraanka noo akhriyay Axmed oo asiga caawinayay oo la shaqeynayay iyo aniga saddexdeenaas ka shaqeynaynay. marka intii aan awoodno oon gaari karno waa isku daynay inaan gaarno maaragtay ama ha noqoto interviews ama ha noqoto legal documentska available-ka ah maaragtay la isticmaalo. maxaa nooga soo baxay natiijada maxaa nooga soo baxay waxaa nooga soo baxay dhowr natiijo oo runtii aan meesha ku qornay detail badan uma geli doono laakiin waxaa horta muuqata in
golihii talin lahaa ee wasiirada uu waayadan dambe u noqday gole aan talin oo ay ka awood badan yihiin prime ministerka ama madaxweynuhu ama cid kale oo bannaanka ka timid oo siyaasaddeena dabcan waxaa leh maaragtay saameyn xoog leh waxaa leh mar walba qolada meesha joogta saaxiibadooda dadka ah yacni dadkaasi inay ka xoog bateen golihii taladu ka go'day marka golaha waxaa laga rabaa issue kasta oo dalkan yaalla inay ka doodaan kadibna go-aanka si nuxura uga gaaraan formalitigana la marsiiyo marka oo ama madaxweynaha loo geeyo ama loo geeyo maaragtay ciddii marka uu ku dhammaanayo baarlamaanka hadduu aadayo sharci yahayna uu baarlamaanka aado waa process sahlan laakiin dhaqankii sidaas ma noqonin dhaqankii wuxuu noqday gole rubber stamp ah oo go-aamo bannaanka lagu soo kariyey la mariyo yacni waana wax hadda hal qolo ku saabsanaa ma ahayn wuxuu ahaa wax dhaqan ah oo aad u soo kordhay oo laga yaabo xataa inuu dib u gaarayo golayaashii wasiirada ee dowladihii militariga uu gaarayo mar walba waxaa aad u awood batay prime ministerka waxaa aad u awood batay madaxweynaha marka waa finding muuqda hadda oo dhacdooyin fara badan oo aan malaha laga qumanaana ay ka dhex dhaceen golihii dhexdiisa arrintaa ayada ah waa arrin oo noo soo baxay waxaa kaloo noo soo baxay wasaaradaha uu goluhu ka kooban yahay wasiirada waxaa ka horeeya daaqadaha iyo wasaaradaha ay maaragtay kala matalayaan wasaaradaha iyo designka oo institutionadeenna adduunka waxaa ka jira ministry ama department hadba meeshii aad joogto waxaa jira agency soomaalidu wakaalada ee malaha tiraa waxaa jira board waxaa jira maaragtay commission waxaa la isku dhahaa marka ministries agencies kuwan ABCs la isku yiraahdaa marka annaka waxaa kaloo study ka soo baxay inay institutionadeenu u samaysan yihiin hab hazar ah oo yacni ay aad iskula jiraan qoorta maxaa wakaalad noqon kara maxaa wasaarad noqonaya maxaasaan yani waxyaalahaas oo dhan inay aad horto ay dhinac iskugu jiraan waxaa kaloo noo soo baxay iyadana marar badan in wasaaradaha loo sameynayay hab qabaa'ilka lagula qancinayo 4.5 ma la buuxiyey reer hebela wasiir weligood lahaan jiray waa ka maqan yihiin maxaa loo sameynaa wasaaradda rehabilitationka ha loo suubiyo yani all kinds of things arrintaas ayada ana meesha way ka soo muuqatay walidaalika waxaad arkaysaa 13dii goor ama 13dii prime minister ee haddana soo martay qaarkood mar ka badan ayba golo wasiirra dhiseenba markaa fiirisid 13daas 10 wasaaradoodna maraa la dhisay 42na maraa la dhisay waad garan kartaa marka laastika camal ay noqotay marna waa la iska durjinaa marna waa la sameynaa normalina adduunka markuu arrimahan wasaaradaha ay wax sameynayo ama wuxuu ictimaadaa convention iyo caado ingiriiska oo kale ama wuxuu ictimaadaa xeer oo waxaa xeerka ku qoran wasaaraduhu ama golaha wasiiradu waxay ka kooban yihiin intaasoo annaga 1960gii sharcigii la baasgareeyey 1962 wuxuu sameeyey 11 wasaaradood 11 wasaaradood bas uu sameeyey marka qofka prime ministerka maba ka fikiri karaba inuu wasaarad kala sameeyo ilaa baarlamaan aado oo sharciga la soo amandi gareeyo 2-3 goorna waa la amandi gareeyay sharciga xilliga Cabdirasaaq waa la amandi gareeyay xilligii maaragtay Maxamed Ibraahim Cigaal waa la amandi gareeyay mar labaadna waa la amandi gareeyay maaragtay marka saas oo kaleeto ayay u dhacday kacaankuna wuxuu ka dhaxlay Maxamed Ibraahim Cigaal wasiirada uu ka dhaxloo hayay marka kadib uu kordhiyay inta badan laakiin kacaanka wixiis waxay ku noqonayeen 18 wasiir ayay u badnaayeen mar 26 la sameeyeen waa jiray I think inay ahayd markii Maxamed Cali Samatar oo ra'iisul wasaaraha noqday markaad eegtaan marka wasaaradda sameyntii waxa meesha ka muuqday inaanay meeshii ahayn hab oo systematiga oo rule based oo sharciga ku qoran inaan loo sameynin arrintaasna waa finding oo meesha nooga soo baxay
waxaa kaloo nooga soo baxay golihii accountability issue inuu leeyahay. waxaa marar badan isdhex qaada golaha iyo baarlamaankii, waa isdhex galaan. waayadan dambe marka si prime ministerkii uu shidada baarlamaanka iskaga yareeyo, wuxuu ka wada dhigayaa maaragtay wasiiro, wuxuu ka dhigayaa dad xildhibaano ah. labadii golaba marka waxay noqonayaan maaragtay laba gole oo aan ismiisaami karin, oo aan isla xisaabtan macno leh aan runtii geli karin. arrintaas ayadana waa finding noo soo baxay. waxaa kaloo aan rabaa inaan intaas yar raacsado. waxaan jeclahay inaysan doodu naga noqonin anagu talada hadda aan soo jeedinayna waaba muuqataay, yani golaha wasiirada hebel ha lagu daro iyo naga noqonine aan si objective u abaarno. waxaa ayadana noo soo baxay oo runtii marka dib loo fiiriyo 1960kii ilaa iyo maanta oo la joogo, wasiiradii la sameeyey haddii la tiriyo imisa haweena, waxaad arkaysaa inay aada u yar yihiin. yani waa marka waa finding you cannot ignore markaad fiiriso yani meesha ayada ah. aad iyo aaday numberka gabdhuhu u yaraa. mana u malaynayo yaraantaasi inay sabab u tahay laba arrin middoodba. bulshada dhexdeeda inaysan aqbalsanayna sababu ma aha, inaysan jirin gabdho wasiiro noqon karana ayadana uma aha. maaragtay labadaba waa jiraan. bulshaduna problem badan kuma qabto. marka insha allah waxaa jiri doonta warqad aan ka qornay arrintaas oo u gaara. waxaan kusoo koobayaa marka maxaad ku talinaysaan. waxaan ku talinaynaa annaga recommendation sectionka haddaa akhrisid warkeenu waa cadcadyahay. waxaan rabnaa golo wasiire oo taliya, saasaan annaga ku talinaynaa, oo wax alla wixii mashruuc jira oo dalkan u yaalla la horgeeyo, ka dooda, kadibna go-aan ka gaara. go-aankaas ay gaareenna meesha oo u socdo kadib loo gudbiyo. hadduu sharci yahayna baarlamaankuu soo aadaa, kadibna wuxuu aadaa madaxweynaha. hadduu arrimaha kale oo madaxtooyada ku dhammaaday appointment iyo waxaas yahayna kadib uu madaxweynaha aadaya. arrintaas ayada ah waa oversight ama maaragtay yani xoogaa way naga dadnayd, aaday nooga daahnayd inaan ama waa ignore garaynayn ula kacaan u samaynaynay. number 1 waxaan leenahay golaha wasiiradu gola ahaan ciddii doontaa ha fadhido waa inuu u taliyaa, waana inuu noqdaa gole aan wasiirku cabsanayn oo shaqada lagaa qaadaya intuu is yiraahdo uusan maaragtay waxa prime ministerka maaragtay hadduu yiraahdo bood uusan meeqa how high inuu dhaha maaha. ma garatay? waa inuu golaha qofka wasiirka fadhiyaa uu dhihi karo maya arrintan sharciga ma waafaqsana, ama uu dhihi karo maaragtay saana aan usoo jeedinaynaa oo aan rabnaa in wax lagu xaliyo. arrintaa ayada ah waa recommendation aanan ogeyn in horta nala ka yeeli doono in kale, laakiin waa soo jeedinay. taasna waxay ka go'daa prime ministerka iyo madaxweynuhu inay golaha siiyaan space. waxay kaloo ka go'daa baarlamaanku inay golaha wasiirada lana xisaabtamaan, spacena siiyaan. taas ayada horta waa muhiim. ta labaad oo aan ku talinayno waxa waaye in dib loo bilaabo oo loo keeno sharcigii nidaamin jiray golaha wasiirada. waxaa la dhihi jiray Organization of the Government Act. yani sharcigaa in dib loo sameeyo oo ay madaxda hadda joogtaa ay geyso baarlamaanka, oo baarlamaanku uu noo sheego inta tira ahaan golaha wasiirada yani inta wasaaradood oo dhismaysa. arrinkan waxaan aniga iyo raggii kaleeto research ku jiray aan fiirinay habkee loo abaari karaa. yani hadda KPMG ama maaragtay qolyahan consultancies ka sameeya, haddii inta loo yeero la yiraahdo just samee design noo sameeya, maxaa wasaarad noqonaya, maxaa wakaalad noqonaya, wax noocaas oo kale ah, waxa dhan waxay ku keenayaan wax yar.
haddii xataa soomaalida la iskaba dhaafaba marka annaga waxaan leenahay keliya criteria un baan siinaynaaye numberkaas wasaaraduhu ha noqdaan ma lihin baahida xagi doonta baahida marka ha lagu saleeyo number 1 waa inay ahaadaan wasaaradan horta u baahannaha waa inay noqotaa oo baahidu ay meesha taallaa number 2 wasaaraddaas ama numberkaas wasaaradaha ah waxa aan ka bixi karno annaga haddii gaalada waxooda goosato ama maaragtay qolyaha dibadda ayna waxooda samaysaan waa inaan afford garay karno wasaaradaheena sida basiga iyo shaqaalaheenna inaan annaga aan lacag siisan karno maanta budgetkeena 70% in ka badan banaanku ka yimaadaa walidaalika waa runtii dhibaa meeshaas ka jira culaysaa ka jira marka annaga waxaan leenahay numberka ha loo fiiriyo baahida ha loo fiiriyo maaragtay wixii aan awoodno dhinaca maaragtay designkana ha la kala qaado wasaaradaha loo baahan yahay oo asalka ah iyo wasaaradaha maaragtay qolyaha wakaaladaha noqon doona waxaan rabaa meesha inaan hal arrin uga noqdo annagu hadda waa ka istaagnay aad umaanaan maaragtay dhexgelin laakiin adduunka markaa fiirisid intay aan hawada ka maqnayn public administrationka maadada la yidhaahdo yani iyo intii militarigu joogay marka la isku daro waa muddo adiga hadda 50 sano xagga u dhaaftay 50kii sano oo lasoo dhaafay public administrationka wuxuu sameeyey horumar weyn marka sidii 60kii wax noogu organize jireen naguma filna waxaa jira wax waagii hore wasaarada ahaan jiray oo hadda wakaalado noqday aniga Canada ka yimid revenue authority CRA wax la yiraahdo jira Canada Revenue Authority oo wasaaradda maaliyadda ay la joogtaa waxaa jirta maaragtay qorsheyntu waa iska central agency waxaas marka technicalka ah detail hadda iyo dadka inaan ku wareerino ma rabno laakiin waa wax inta loo yeero cidda khibradda u leh la dhihi karo designkan tala ka keena sida loo samaynayo oo adduunka hadda sida ugu fiican oo ugu casrisan oo ugu efficientisan oo wax loo maamulo karo loo sameeyo marka arrintaas ayada runtii aad waxaan u dhiirigelinaynaa in designka loo dhug yeesho marka institutionada la sameynayo number 3 waxaan soo jeedinaynaa in golaha wasiirada horta waxaa ku jira golaha wasiirada intaan aan u gelin dadka Soomaaliyeed inay go'aan ka gaaraan nidaamka ay qaadanayaan ee saameynta ku leh golaha wasiirada ma nidaam presidential system aha nagu haboon mase waxaa nagu haboon nidaam oo parliamentary system oo ay golaha wasiiradu ka dhex yimaadaan baarlamaanka nidaamna fusion system la yiraahdaa nidaamna separation of powers la dhahaa annaga horta marka waa inaan mid ku qunno keena sheekadeenu hadda marka dib u raacid waxa arkay carto oo kale wasiir iyo la isku noqon karin maaragtay qofku marka uu wasiir noqdo xildhibaannimada uu luus gareynayo mar dambana waxaa la soo baxay xildhibaan bas aan noqon kara wasiir dinki magaatiin haddana dastuurka waxaa noogu qoran labadaba way noqon karaan qof banaanka laga keenay iyo qof gudaha jooga labadaba way noqon karaan marka anagu hadda maadaama wixii mas'ala dastuuriya ay taalo oo aanan dhihi karin waxa dastuurka ka baxsan hala sameeyo laakiin still waxaan leenahay waxa quman in si labada gole ay isku miisaamaan hadda golayaasha dadka loo magacaabayo gaar ahaan wasiirada in la geeyo maaragtay dad aan u badnayn xildhibaano anaga saasaan soo jeedinaynaa oo runtii aanan aad u dhiirigelinaynaa dadkaasna marka la magacaabayo competencyna in la fiiriyo political skill na waa in la fiiriyo dadka qaar qaba malaha in wasiirka uusan siyaasi ahayn ma siyaasi waa yahay laakiin maaragtay competencyna waa loo baahan yahay hadda wasaaradaha markaa tagtid wasaaradii oo qof farsamo yaqaan joogay way ka duwan tahay wasaaraddan qof farsamo yaqaan joogay xaqiiqatan marka loo hadlayo marka aniga waxa ila quman study-gana ku qoran inaan yani aanay mar kale naga khaldamina markii qof la magacaabayo aan u fiirino competency-ga iyo nidaamkan meritocracy-ga
waxaa kale oo aan ayadana runtii aan soo jeedinay inaan appointment systemku uu also reflect gareeyo bulshada dhexdeeda oo aan ahayn keliya qabaa'ilka ee uu yahay maaragtay gabdhaha iyo wiilasha as well oo ay gabdhuhu ay ku yeeshaan presidency maaragtay golaha wasiirada. We're saying this because caalamkii hadda oo jiray oo hore caalam ka duwanaa jira laba qolaba marka xasaasiyadihii waagii hore laga qabi jiray hadda maba laga qabi karaaba survival issue waay. mid waxa waaye gabadha in la yiraahdo kaliga maaragtay ma geli karto systemka dawliga ah dee dhinaca noloshuusaba hadda la soconayn gabdhuhu way shaqeeyaan private sectorka ka shaqeeyaan meel walba ka shaqeeyaan diasporadana sidaas oo kaleeto dalkan close to 40 to 45% of dhaqaalaha soo gala ayagu ka yimaada waa very important marka inay mujtamacan noloshiisa qayb ka ahaadaan ideaska iyo hadda laftirkeeda institution building iyo wax qayb badan ka yihiin labadaba marka lama dhihi karo halla maaragtay halla ignore garay lama dhihi karo. In fact diaspora hadda xoogooda ku joogaan meesha ayagaaba ma wada qabsadayba laakiin gabdhaha waxa moodaa in la gacan bidxiyo marka waxaan soo gabagabeynayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa annaga sababtaas aan nagu bixisay waxaan soo ogaanay intaas aan idin sheegay waxaan ku talinaynaa dhowrka arrimood oo aan soo jeediyay study-ga waa idin horyaal waxaan rabnaa in la challenge gareeyo waxaan rabnaa meeshaan irduufnay ama khaladnay in loo sheego waxaan rabnaa in haddii waxa aan ku talinayno wax ka fiican ay jiraan aad maaragtay aad sheegtaan oo tiraahdaan waxaana ka fiican laakiin anaga doodaan rabnaa inay doodeena noqoto dood civil ah oo maaragtay aan isla garanno inaan horta ku heshiino xalku wuxuu ka soo baxaa markaan wada hadalno maaragtay oo doodno marka intaas ayaan runtii rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waan idinka mahad celinayaa waxaan rabaa inaan dad response ka bixinaya aan meeshaan ugu yeero marka ayaga maaragtay aan nala wadaagi doona Dr. Khayre noo imo waxaan u yeernay Jawaari Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari runtii sida muuqata magaaladii maadaama ay kala xiran tahay hadda nooma suurtagelin sida laakiin waan filaynay waxaan kaloo u yeernay Fawziya Xaaji Yuusuf Xaaji Aadan ayadana waa noo imaan weysay waa ka cunahay laakiin waxaa kaloo jooga Cabaas waan arkay waa soo galay Cabaas dadka soo akhriyay aan ognahay oo la hadalnay oo yaan u yeernay Juxa adna inta noo imo qof kala jiray ya ha Sumaya ha soo dhawo ya baafo aw waa iga dhuumatay baafo soo dhawo ya xagaa faliso marka saddex su'aalood baa meesha taala ya marka saddexdaas su'aalood dee awi Xuseen سبحان الله يعني برايم مينستر هذا قاب كله بدلايو يو يعني wax oo logic amaha waqti umada oo la dayacayo oo dadkaaneta madaxda ah oo micno u lahayn oo caadi loo nool yahay midkii imaadaba loo sacabtumayo oo qof oo maxaa la yiraahdaa sida aayada quraanka ku qoran alaysa minkum rajul rashid ba meesha ka soo baxday Cabdiqaasim Salaad madaxweyne Cabdiqaasim xilli yar uu joogay saddex prime minister ay imaadeen Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaheena hore iyo haddaba asagana saddex
prime minister ay imaadeen almost every year midaa la bedelayay in kii ugu dambeeyay cambaar loo hakiyey suu waqtiga oo loo dhammaystiro dadkii maxaa loo qabtay marka mar walbana taaseeto ma aha keliya problem oo madaxweynaha dhankiisa ka socda sidoo kale waxay ka socotaa dadka loo yaqaano muthaqafiinta aragtidooda muthaqafiin waxaa jira oo shaqadooda dhan tahay inay u sacabtumaan madaxda markay prime ministerada kala gagadinayaan baarlamaanka laaluush la siinayo mooshinno la keenayo dadka la mashquulinaya maxaa la yiraahdaa wixii dantooda ahna waa laga leexinayaa marka xaqiiqatan daraasadan waa loo oomanaa dadka Soomaaliyeedna madaxweyne intay u sacabtumi lahayn ama baarlamaanka laftirkiisa isdagaali lahaa waqtiga la hakin lahaa waa in uu shacabka laftirkiisa uu cambaar fakaraa uu codkiisa kor u qaadaa oo kuwa muthaqafiinta codkooda oo la dhageystaa hadda heritage waxaa waaye maybe inay jiraan think tanks badan laakiin waa the only think tank aqaano marka waxaa rajeynaa insha Allah tacaala mawaadiicdan inaa la badiyo oo laftirkiisa internet ani waxaa ujeedaa waa elite almost dadkii shacabka banaanka jiray kama warqabaan almost they don't care waxaaneeto macno weyn uma leh laakiin diraasaadka aanoo sheegtay ustaado oo dumarka inay ka maqan yihiin wasaaraadka arabtiin inaad soo saartiin taasna waa xiiseena inaa maqlo sababtoo ah mar walba waxaa maqlaa kootada 30% waxaa loo maleeya only barlamaan moogtahay xataa ma aragno guddiga markii oo ra-iisul barlamaanka iyo ku-xigeenadiisa hadda sacdiya baa soo baxda alxamdulilah 30% meeshaas uga jeedaa laakiin aqalka sare ma leh wasaaradaha ma leh meel ay joogaan 30% ilaa barlamaanka oo waliba la soo dhaweeyay ma ahay ma jirto marka insha Allah tacaala waxaan rajeynaa wacyigaas inaa la gaaro marab inaan ku dheeraado aadaamasatay magacaabo marka waxaan rabaa inaan ku bilaabo arrin warbixinta macnaha weer ku jirtay oo macnaha anaga dhan laga yaabo in naga fakarsiiso oo ah macnaha Soomaaliya tusaale ahaan qaabka dawladnimada iyo golaha wasiiradu u shaqeynayaan macnaha inay ka liidato xidhiidhiyadii siday ahayd markii ku dhaqanka sharciga iyo bixinta adeegyada la fiirsho 60 sanadood ka bacdi macnaha marka xorriyadda qaadanay in xaalka iyagu uu ka liito markii gumaysigu naga tagay macnaha waa arrin anaga dhan Soomaali ahaan la rabo inaan kor istaagno aan ka fakarno macnaha waxyaalaha yaryar oo aan ku mashquulsanahay oo dhan macnaha laakiin 60 sano ka hor adduunyadii sida professor Afeer hadda sheegayo kale wax badan isbedelay 50 sano 60 sano laakiin haddii la qiimeeyo qiimo sax ah oo caadifada iyo markii iska dhaafno macnaha in nidaamkii dawliga macnaha nidaamka maxkamadaha u shaqeeyaan nidaamka wasiirada loo xulay wixii hor inay ka liitaan waxaan isleeyahay aniga warbixintan waqtigeedii timid oo tusaale ahaan taariikh ahaan heerarkii soo martay si fiican ay u sharaxday waxayna soo jeedin oo fiicanna waa samaysay oo ah in nidaamka lagu soo celiyo sharcigii oo number 14 oo 62 soo baxay in dib loo habeeyo marka la sameeyo wixii noqdaan wax ku salaysan qaanuun ku salaysan sababtoo wasiirada hadii ra'iisul wasaarihi yimaadaaba hadduu inta iska magacaabo hay-ado oo adeeg fuliya inaan la helin ayaa laga yaabaa oo meesha ka timaado laakiin waxaan isleeyahay markii la leeyahay wixii kale oo warbixinta soo jeedasho aad u muhiim ah in lagu saleeyo rules based inay noqdaan oo qaanuunka iyo sharciga wixii lagu saleeyo oo nidaam oo qaabkaas loo socdo laakiin su'aal kale iyada laga yaabo in meesha soo gasho ah golaha wasiirada hortood inta hadda la dhisin hadda anaga tusaale ahaan oo kale dawladii hore intay shaqeynayeen golihii maxaa la dhihi jiray doorashada intii socotay waxaa laga yaabaa sharciga iyo qaanuunka xayndaabkiisa banaankiisa in ciyaartu ka socotay macnaha ciyaartii oo marka xayndaabkii banaanka qaanuun ka socota hadda haddii hore looga soo celi tago waxaa laga yaabaa inaysan sahlanaynba ani marka waxay ila tahay in qorshaha meesha lagu daro inay mar walba noqoto sareynta sharcigu macnaha waxa dawladnimadeeda hagaaya sareynta sharcigana 4 mabda'a ugu waaweyn oo ah macnaha isla xisaabtan accountability macnaha hay'adaha dawladda
jilayaasha gaarka ah ama ha noqdeen shirkado ama shakhsiyaad ha noqdeen ama qof kasta in sharcigu ka sareeyo macna tan kalena waxay tahay inay qawaaniintaas la sameeyana inay qawaaniin oo justice oo cadaalad noqdaan oo qaab daahfuran si oo cadaalad oo sina loona hirgeliyo loona garsooro oo macnaha ay noqdaan nidaam dawlad furan noqoto oo wax walba dawlad sameeyana ay noqoto arin oo daahfuran oo qaabka shaqaalaha loo qaadanayo qaab qaanuunka inuu mar walba ka sareeyo tan u dambeysana maxaa la yiraahdaa garsoor madax bannaan anaga hadda dastuurkii waxaa ku qoran guddigii adeeg garsoorka in la sameeyo mana dhisna oo wax kala saari lahaa maxkamadihii loogu talagalay in waxyaalaha qaar sameeyna ma dhisna ani marka waxaan isleeyahay inay taas muhiim tahay in golaha wasiirada kaliya waa talo aad u wanaagsan laakiin in lagana hormariyo in qaanuunku sareeyo lagana daba mariyo oo macnaha ay noqoto nidaamkayga dhan nidaam ku salaysan sareynta qaanuunka nidaam ku salaysan inuu noqdo macnaha waxa talo kale wanaagsan oo ku jirta waxay tahay cabinet office-ka macnaha hay'ad oo xoghaynta golaha wasiirada oo berigii hore 60 jiri jirtay wadamada adduunyadan oo horumarana ka jirta in waa jiraan xoghaynta waxa u maleynaa oo golaha wasiirada laakiin in la xoojiyo oo sida adduunyada ay noqoto hadda ingiriiska oo kale waa hay'ad aad u awood badan oo waxay ilaaliyaan xataa ministerial code waxay yiraahdaan hadda qofkii siyaasadda ingiriiska la socday suu grey oo haweeney la yiraahdo warbixin macnaha wasaaraha iyo golihiisa wasiirada ayaa markii covid-ka uu jiray oo macnaha oo ay jirtay nidaamkii ay waxay sameeyeen kulamay samaysteen iyo dadkii kale ay sameeyeen la tagi karin warbixin marka oo ay leedahay waxa fashilmay in hogaankii ay soo saartay macnaha marka waa xafiis aad u awood badan oo hadii la awoodeeyo aan isleeyahay hadda Hollandiiska oo kale dalka Holland oo aan ku noolaa jiro kale waa cabinetka ay leeyihiin sharciyeena leeyihiin ba inta wasiirada yihiin awoodahooda macnaha sida anagaba aan u lahayn jirno la rabo in hadda la sameeyo ana qodob oo waxa ku jira xataa minuteska laga qaado 20 sano inuu sir ahaado inaan banaanka la keeni karin hadda ingiriiska oo kale xafiiskaas wuxuu qabto waxa kamida leakska macnaha markii wararkii ku saabsanaa oo looga dooday golaha wasiirada banaanka la keeno ana waxa laga yaabaa golaha markii laga soo baxaba banaanka in la ogyahay qof walba og yahay sirba jirin ba on si fiican arinta hadda barsoor afar ka sheekeynaa ahna in ay meel oo lagu tiim bareeyo wax noqdaan buug Allahu naxariistay Jaamac Maxamed Khalid buugiisa oo The Cost of Dictatorship wuxuu uga sheekeynaa aad buug u xiiso badan waay oo qof walba kula talinayo inuu akhriyo mar wuxuu ka sheekeynaa dood golaha wasiirada ka dhacday macnaha madaxweyne siyaad barre markii Allah naxariistay wuxuu yiri macnaha waxa la keeni jiray golaha wasiirada arinta uu madaxweynuhu rabin bis macnaha arintii uu rab inuu dood geliyo hadaan aragno waa arrinsan uu sarfin macnaha inay hirgasho macnaha marka waa laga dooday si fiican marka wuxuu ka sheekeynaa arrimahaas oo laga dooday oo diidayba macnaha laakiin wuxuu anaga waxaan ba ogeyn ba hadii marba la keeno golaha wasiirada laga doodo inay ahayd arrin aan rabin marka أنا waxaan is dhihi lahaa arintaas waa arin aad u soo jeedinta warbixinta arin aad u muhiim waaye sareynta sharcigana macnaha inaysan golaha wasiirada dhismahooda kaliya ahayn nidaamkayga dawladda inaan ku salayno macnaha qaabkaasan hadaanan sameeyna waxaan iska daba wareegan oo waxaan ku jireynaa oo aan waqtiga dheer ku jirnay ani mar walba waxaan ku doodo waxa jira aan ku doodo oo ah 20kii sano hadda u dambeeyay oo aan ku jirnay dawlad dhiska waxaan isku dayeynaa dawladda militariga soo celina nidaamka dhan hadaa fiirisan waliba xataa marmar ma qarsanaba waxaan rabnaa meeshan sidii ahaan jirtaan ka dhigaynaa waxaan rabnaa booliska meeshan sidii ahaan jirtay inaan ka dhigno meeshii wixii nidaamkii hore waa noo shaqayn waayey macnaha nidaam dimuqraadi aan u guurnay waxaa la rabaa inay nidaamka dhan noqdaan nidaam oo qaanuunku uu sareeyo oo sharcigu sareeyo oo nidaamkan marka dawladdii militariga way dhacday macnaha nidaamkii in laga guuro marka laakiin anaga isku dayno hadda awoodda madaxweynuhu uu awoodda ku leeyahay markaa fiirisid warbixinta hadda la sheegayay macna dadka dhan maskaxdooda waxa ku jirta hadda dastuurka fiirisid golaha wasiirada awood aad u far badan ay leeyihiin laakiin iyaga xataa ma aaminsana oo warbixinta waxa la siiyay tala ah macna inay aaminaan inay hay'adda ugu sareysata macna markii qofka xataa ra'iisul wasaaraha waxa laga yaabaa soo awood badan leh madaxweynuhu inuu u tagayo sababtoo ah nidaamka dawladnimada anaga u haysano oo ku soo kornay oo lagu hana qaaday ayaa waxay tahay tii militariga marka inaan si cad uga guurno aniga talada wanaagsan ila tahay oo nidaam qaanuun ku sareeyana u gudno mahadsantiin soo qayb galay waxaan u mahad celinayaa hay'adda muxuu ahaayay heritage haddaan iraahdo warbixinihii ama researchskii aan akhriyay waayaha kan kuwa ugu fiican bay ku jirtaa ama haddaanayba ugu fiicnayn
wax boonboonin ah oo ku jira ma jiraan sida anigu aan wax u akhristay haddii la soo koobo wagan yaraa baan waxaan maqli jiray qur-aan oo dhan kufu an baa isku fuuqsatay hadda haddii aan fiiriyo raboorkan wuxuu ina leeyahay kulligiis waxaa isku fuuqsaday war si dowladnimo ah aan u noolaano sidaynu hadda u noolnahay dowladnimo maaha baan ku soo koobi lahaa anigu waxyaalaha oo casharada la qaato duruusta la qaato marka la dhalin yar yahay wax badan baa kugu dhiga anigu economist ahaan baan ahaa laakiin se duruustii public law iyo private law markii baa ka mid ahaa waxaan aada u xasuustaa oo aada maskaxdayda ugu dhegan oo mar kasta aan tabaa waxa weeye markii laga hadlaayo public sphereka ama public lawga qofka madaxda ah waa inuu sameeyaa waxa sharcigu farayo oo keliya ma aha ma og tahay wax furan oo uu soo rabo yeeli karo within the law marka sharcigu wuxuu farayo ama mas-uuliyaddiisu farayso space waa jirtaa uu asagoo aan sharciga ka gudbin haddana waxqabadkiisa wanaajin karo laakiin mar hadduu xayndaabka ka baxo sharciga halkaas waxa weeye waxaa yimi xadgudub fara badan private sphereka markii lagu jiro qofku waxay aan sharciga ku xadgudbayn buu baa u bannaanta inuu sameeyo intaasaan ka xasuustaa intaas baana aniga hadda kolley aan mar walba observationkayga haddii marka ay qofka madaxda ahi uu sameeyo waxaan sharcigu bannayn macnaha ku jira waxa weeye dowladnimadii baa la privatize garay dowladnimadii baa waxaa laga dhigay wax shakhsi ah ama wax kooxeed ama wax un company ah ama wax oo muxuu ahaa aan kolley dowladnimo ahayn arrintaas marka waxa weeye aada baan arrinta ugu caddahay raboorkan oo ah waxa weeye qofka mas-uulka ah meel kastuu ka joogo inuu sameeyo waxa sharcigu farayo waxa mas-uuliyaddu farayso inaan geedkii ah arrinta kaloo aadka aniga kolley ii soo jiidatay oo aan muxuu ahaayey waxaad adiga ku hayay markii lagaaga sheekeeyo waad jeclaysanaysaa ma ogtahay waxa weeye our problem Soomaaliya problemkeeda ilaa 60kii laga intii hadda uu doctorka shakiinayay oo dawladda militariga jirtay waxbaa la qabtay dadku waxqabad oo u baahan yihiin laakiinse waxqabad ka baxsan xayndaabka dowladnimada aakhirka wuxuu keenaa burburka ugu daran marka waxa weeye our problem ilaa maalintii ilaa 3 o'clock markay saacaddu ahayd 21 October 69 maalinta habeen talaada ah laga bilaabo ilaa hadda our problem keen in haysta waxa weeye waa mashkilad madaxweynenimada ayaa waxay in ku tahay meesha aan ka talaabsanahay meesha aan u dhimanayno haddii aynaan madaxweynenimada u gelin hadda shaati sharciga ah mustaqbalkeenu wuxuu noqonayaa mid aan maalin walba catow iyo cabasho ah waxaan kusoo koobi lahaa madaxweynaha aan leekaysiino nidaam muxuu ahaa shaatiga sharciga ee dastuurka iyo dadnimada iyo uu farayso aan leekaysiino haddaynu halkaa ku guulaysano inta kaleeto waa iyaguna waxaan spill over muxuu ahaa hoos bay u degdegaysaa dowladnimadu intaasaan kaga baxayaa raboorkuna arrimahaas si cad buu u sheegay waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا شركة يا بروفيسور عافيري يا هيريتيج قبضة أساس سميين وأنا وربحين مهم وكسب بيجانتي حلي دولة عصب من الرئيسية باهيدا دون تاجنتها غير ذي عبشة أي بدنتهاي أنا وإحنا ورا لها وكلية وحالة شوجا حلي جي تب شرعي الله كل رقم لها حن بدأ حين داب كشرعي كل رقم كيسين لقى بحي taasna waxay ka bilaabanaysaa in saddexda hay'adood ee dawladdu ay kala madax bannaanadaan isna xakameeyaan oo baarlamaankii iyo garsoorkii iyo xukuumaddu
mid walba shaqadeeda ay haysto mid walba midda kale shaqadeeda ay ka qabsato taa haddii la helo saldhig baa imaanaya golaha wasiiradu oo xukuumadii ah inuu shaqeeyo waa muhiim talada soo jeedisanna waa fiican tahay laakiin marka horeba waxay ku xiran tahay in madaxweynuhu horta uu siiyo space iyo fursad ra'iisul wasaaruhuna golihiisa siiyo space wasiirka shaqada loo dhiibayna oo isagu horta bal ku kalsoonaado aragtidiisa iyo fakarkiisa oo xataa haddii aysan uu dhigi karo miiska in uu ka bixi karo ama diidi karo wixii markaas aan damiirkiisa iyo sharciga midna aysan ogolaan marka waa saddex meelood wasiirku isku kalsoon aan wuxuu shaqo kale aysan ka ahayn ra'iisul wasaaraha uu ogol wasiirku inuu cod leeyahay oo goluhu muhiim yahay oo la xisaabtami karo oo doodi karo madaxweynaha oo marka horeba ruuxiisa ra'iisul wasaaraha isaga ruuxiisa space waxaas oo dhamma way isku xiran yihiin waxa kale waayahan golahan anigu wadamar baan soo ahayo way aragnimada ah in golayaasha wasiirada ruuxeedu ay wiiqan yihiin arrintaas way soo badanaysaa labadii maandayda ugu dambeeyayba waxaad moodaa in taladu ay ku soo wareegayso xagga xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka oo wasiiradu ay golaha wasaaraduhu ay sii wiiqmayaan oo qaybsanayaal badan la keenayo meesha ruuxeeda waxa loo baahan yahay shaqada in dib loogu celiyo wasaaradaha loo baahan yahay oo ra'iisul wasaaruhu la xisaabtamo wasiirkiisa madaxweynuhu ra'iisul wasaaruhu saa u ahaado marka in xaydaabka sharciga dib loogu noqdo su'aalaha iyo debate-kana dib loogu noqdo arrinta hadda Cabbaas uu sheegay dalku madaxweynuhu noqday ama ra'iisul wasaaruhu noqday dalku waa sii shaqsiyoobaya meel walba qofka ugu sareeya ayaa sharciga iyo talada ku soo ururaysa inta yar oo su'aalaha qabtana shabad baa la daba jooga ama cadaabtii lagu ridayo ama qarandamas lagu dhufanayo ruuxdu waa si aamusayaan marka in xilligii isla xisaabtanka iyo wax isweydiinta dib loogu noqdo dadkana waa ku dhiirigelinayaa dawladda iyo maxkamadaha iyo garsoorka kule inay shaqeeyaan waa ku dhiirigeliyaan oo halkaas aan qabaa in ciladu taalo xaruntan heritage macadka heritage iyo daraasadan aad u qiimaha leh oo run ahaantii waqti fiican ku soo aaday waxaa jira hadda lala xarbinaya arrimaha meesha lagu soo qaaday marka in tale laga bixiyo oo wax la yiraahdo aad u fiican tahay macadkan wuxuu ka tirsan yahay bulshada ballaaran ee bulshada reedka la yiraahdo waana mid la rabo inay ra'yiga curiso daba gasho daba taagnaato la rabo maartay waxaan dhihi lahaa markaad fiiriso warbixinta aad fiiriso waxyaabaha ay tilmaamayso waxaa ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn waxaa ka jiray leedahay dastuurka laftirkiisa oo aan aad u cadeynaynin maartay xiriirka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aniga waxaan qabaa dastuurka si aan leexleexad lahayn ayuu wuxuu u qeexayaa waajibaadka saaran madaxweynaha iyo awoodda uu leeyahay ra'iisul wasaaraha waajibaadka saaran iyo awoodda uu leeyahay arrintu ma ahan inaan dastuurka usan kala saarin waxaa mushkiladda ay ka taagan tahay dastuurka oo aan lagu dhaqmaynin maartay dhaqankii baa maqan maxaa dhaqanku u maqan yahay maartay maxaa isku diray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddaad fiiriso dastuurkii 60kii jiray wuxuu leeyahay si cadaan ah isna wuxuu u sheegayaa xiriirka labadooda ka dhaxeeya wuxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu magacaabi karaa ra'iisul wasaaraha shaqadana wuu ka eryi karaa waa ku taalla maartay يعني أوداس على سي لكن مدحوينه آدم عبد الله إنك استو تدبسر وماشي فديه رئيس وزراء وعيري مجرين مارت وحلا إيجا مركي خلاف الصبح وحلا إيجا ناي وقت جيس بدلك مركاسو طلابك قاعد هاي معنا كان وحلا هاي لما إريكر لكن كل وقت هذا نوال وذا إريه مارت وحا لا أديك صدي قاب كي مدحوينها وكو إري لها ومالك لو كسو بريك تدرش لو كسو قلي qofka isqabtaan baa la ceyrinaya maartay maxaa marka sax ka dhigay aniga waxaan u maleynayaa waxa ka dhigay waxa waaye fikriga siyaasadeed oo hadda siyaasiyiinteena iyo dadweynaheennaba ay qabaan waxay tahay waxaa la rabaa madaxweyne meel taga oo si xoog leh dalka u maamula taasaan wada aaminsannahay haddaad fiiriso madaxweynayaasha marka ay musharaxiinta yihiin sidee u hadlayaan kulligood waxa ay leeyihiin waan qabanaynaa waa wixii ra'iisul wasaarahooda uu qaban lahaa shaqa aan madaxweynaha looga fadhinba meesha la soo joogsadaan oo ay sheegaan cid tiraahdana lama arko maxaa waxa kuu geeyay adiga hawsha hawl ku taal ma ahan maxaa dhacay lama yiraahdo
waxaan wada aaminsannahay madaxweynaha inuu yahay kan ugu awooda badan haddana waxay ka duwantahay lixdameeyadii iyo kaga duwantahay waxaa weeye madaxweynaha iyo jagadaasi waa jago qabiilaysan waa jago ganacsiyeysan maalgelin baa lasoo gashaday qof baa soo iibsaday hawl uu kusoo dhinto kusoo dhibtooday nin iska socdo iridda kasoo galay inuu ku wareejiyo inaan ka dalbnaa suuragal ma isna naga yeeli maayo wax soconayana ma aha madaxweynahana awoodda kusoo aruurtay mudday nala jiri doontaa inta si cada wax looga bedelayo maaragtay madaxweynaha awoodda gacantiisa ku jirta waa mid siyaasadeed waa mid ciidan waa mid dhaqaale wuxuuna markaad aragtay barnaamijyada ay soo jeedinayaan kulligood waxay wada aaminsan yihiin in wax bedelo caafimaadku wax ka bedelayaa waxbarashadu rabaa in wax ka qabto jidad buu noo dhisayaa ceelal buu dhisayaa saasuu ku yimid oo uu ku yimid oo madaxweynaha ku noqday marka shalayto waxaa joogay 20 sano 21 sano nin maxamed siyaad baa la yiraahdaa dalka xukumayay saddexdaas awoodood buuna isku haystay tii militarigu haystay tii siyaasaddu haystay dhaqaalahu haystay waa la dabagediyey laakiin waxa la dabagediyey ma ahayn nidaamkiisa ma ahayn isagaa uun meesha laga tuuray sida haddeertaan la tilmaamaya kulligan waxaa wada aaminsannahay madaxweynahaas inuu sidaas oo kale noqdo maxamed siyaad oo kale inuu noqdo nin awood badan xoog badan oo meesha ku jooga mataqaanaa marka waxaa iskhilaafsan waxa aan raadinayno aan rabno iyo dhaqanka siyaasadeed hadda jira ayaa iskhilaafsan xagee marka meesha ugu daran tahay waxaan qabaa oo sida la sheegay ra'iisul wasaaraha iyo dawladdiisa iyo sidii loo hagaajin lahaa marka laga hadlayo aan si waaqici ah u hadalno madaxweynaha kan wuxuu rabaa inuu dalka u taliyo cidda uu keensanayana wuxuu rabaa cid isaga siyaasaddiisa ku shaqaysa inay noqoto waa xaqiiqada jirta way systemka marka muxuu yahay annaga waxaan qaadanay midka la yiraahdo midka baarlamaanka aan qaadanay oo madaxweyne magaca iyo ra'iisul wasaare xoog loo shaqeynayo iyadina ma hayno waxay marka nidaamkeena dhaqankiisa wuxuu u dhow yahay midka faransiiska u dhow yahay oo madaxweynaha uu madaxweyne yahay qofku magacaabayo ra'iisul wasaarahan uu yahay qof isaga u shaqeeya u adeega hawlaha u qabta kaasaan rabnaa inkastoo aan magac ahaan la sheegaynin oo aan iska dhigayno parliamentarian system baan leenahay laakiin ma ku hayna meesha ma jiro oo hadda qola maxaan ku rahdaa xisbi lagu soo doortayna meesha ma joogto qofkaana waa la soo qabtay walwalkeena marka maxaan u baahanahay xaaladda aan ku jirno si aan uga baxnaa sidaan uga bixi lahayn waxa weeye madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa khilaafkooda inuusan hakin sidee ugu fiican marka madaxweynahaas xoogga leh oo xooggana raba ku jooga iyo ra'iisul wasaarihiisa see u wada shaqayn karaan oo dhibtan nooga saari karaan waa su-aasha taagan aniga waxay la tahay marka madaxweynaha shaqada u taalla waxay tahay si khilaafkeena loo yareeyo bal inay isaga siyaasadihii isaga kusoo horreeyey ninkii wax qaban lahaaba isaga kaga soo horreeyey siyaasadihiisa iyo qorshihiisa inuu si fiican uga soo bogto inuu ka dhaadhiciyo qofka ra'iisul wasaaraha la ah ra'iisul wasaaraha imaanayana inuu ku talagalo dowlad faransiis ahoo ra'iisul wasaare loo yeeranayo shaqo loo dirsanayo inuu yahay inuu ku talagalo waan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaan jeclahay inaan aad iyo aad u tahniyadeeyo heritage daraasaddan ay soo diyaarisay cabaas baana sheegay oo in my opinion one of the best studies heritage ka soo baxay lagana yaabaa muddo dheer report noocana dalka arrimaha Soomaaliya waan akhriyay reportka I think afyarana wuxuu na weydiiyey in aynu review garayno marka u malayn maayo in ay meel inooga bannaan tahay inaan constitutionka naqtin ku samayno laakiin reportka anigu markaan akhriyay wuxuu ka bixinayaa dulmar aad u qurux badan taariikhda Soomaaliya si yar oo gaaban oo laakiin digest la soo qabsan karo taas aad buu ugu amaanan yahay waxa kale uu reportku ka bixinayaa 10 wax ku oola governance ama xukuumadda Soomaaliya taariikh iyana gaaban oo runtii la tuujin karo waxa kale uu tilmaamayaa detailka waad sheegteen laakiin challengeska ama caqabadaha ilaa imika la soo gudboonaaday intii dawladda Soomaaliya jirtay si fiican oo ama ha noqoto kuwii hore ama kuwan 20 sano ee ugu dambeeyay waxa aniga highlights ama meelo soo ifbaxaya iftiin ka baxaya oo ila muuqday daraasaddu waxa uu nuxurka ku soo ururiyay dibta inaga haysata prime ministerka cabinetka iyo baarlamaanka saddexdii hay-adood labadii hay-adood ee ugu muhiimsanaa iyo qaybintoodii inaan intu midna shaqaynin marka detailka reportku aad buu uga sheekaynaya laakiin
dad aan akhriyin iyo dad akhriyeyba runtii arrimahaas aad bay ii soo jiidsatay. Recommendationka ama tala bixinta findingska aad bay waafi u yihiin. afyarana uu taabtay oo xagga dumarka iyo meelaha aad iyo aad looga gaabiyey. maxaan ku dari lahaa amaan siri waa malaha duruusadaha labaad ayay kusoo dari doonaan aan isleeyahay waxa weeye anigu waxaan qabaa madaxweynuhu wuu eri karaa prime ministerka hadduu processka u maro, xaq buu u leeyahay, laakiin waa inuu processka u maraa. taasna wuxuu u baahan yahay baarlamaan soo jeeda oo dhisan. aniga isagal baa ka sheekeysanaynay baarlamaankii awoodda uu leeyahay, madaxweynuhu wuu geyn karaa magaciisa vote of no confidence, laakiin waxaa meeshana ka maqan oon macadka aan ku dhiirigelinayaa inay arkaan madaxweyne iskama eri karo prime ministerka haddaanu report evaluation haysan. waxaan qornayn the legal rights of the employee ama shaqaalaha awoodda uu leeyahay. at the end of the day prime ministerku ama ministerka qudhiisu waa shaqaale, laakiin waa shaqaale xuquuq leh. executive-ku xuquuq buu leeyahay. marka tiiban iyanay noo qornayn. marka waxaan jeclahay aan ku dhiirigelinayaa macadka inuu arrintaa hadhowto daba tago, uu eego in la qodobeeyo, la sharciyeeyo ilaa wasiirku xuquuqda ka unionka ku jiro oo kale ma leh wasiirku, laakiin wasiirku iskama eri karo uun intuu aroortii soo tooso madaxweynuhu ma odhan karo shaqada ka bax, waayo he can sue. wixii baa inaga maqan. marka daraasadaha labaad intaa lagu eeno waan mahadsantihiin and I really applaud sidaad wax u qorteen. thank you. aad baan ugu mahadcelinayaa macadka heritage iyo afyare iyo tiimkiisa dadaalka faraha badan ay runtii sameeyeen. waan ku raacsanahay raggii iga horreeyey iyo gabadhii iga horreysayba inuu reportkuna fiican yahay, kooban yahay. wax yar baan isha mariyey. waqtigii saxda ahaana kusoo hagaagay. mararka qaarkood reportna waxaa jira waqtigii saxda ahaan kusoo hagaagin. haddaa loo baahan yahay. waxaan rabaa intaanan waxoogaa yaroo fikradaha ka dhiibanin waxa meesha ku qoran ama wixii panelku ka hadleen. panelkuna aad buu u mahadsan yahay by the way. waxaan aaminsanahay tan hore oo quickly aan rabo inaan u dulmaro conflictiga studiguna kolley kuma saabsanayn madaxweynaha iyo prime ministerka. sharcigu horta si fiican uma qeexin sida la tilmaamay. adduunka waxaa laga yaqaanaa madaxweyne xoog leh iyo prime minister ceremonial or the other way around, ama maxaan ku yidhaha madaxweyne ceremonial iyo powerful prime minister. laakiin innaga labadiiba way isgarab yaacayaan. waxaan aad ula yaabay maalin dhaweyto Kenya mar laga doodayay in dastuurka waddanka wax laga bedelo. doodanaa timid argumentigan doodan debatekana yimid in prime minister la introduce gareeyo. dadka elite-ka qaarkood tusaale Soomaaliya u soo qaateen. war inaga daaya bay dhaheen mayna prime minister isku keenna waad aragtaan wax Soomaaliya ka taagan. marka it really way adag tahay adduunka inaad aragto labadoodiyo saa isu garab socdo ninba ninka kale uu ku taagan yahay. sharciga in wax laga bedelo aad ay muhiim u tahay. taa intaasaan uga baxaya. laakiin astariga haddaan wax ka dhaho anigu maadada masterskii baan ku qaatay maadada public administrationka. hadda waa la bedelay jaamacadaha qaarkood. professorkiina wuu ila jooga MPA baa la dhihi jira oo P-da sare laakiin hadda waxaa loo bedelay MS Master of Science in Public Service Management. science baa lagu daray hadda oo yani baahida loo qabo awgeed. afar qodob oo daraasadu ka hadashay oo muhiim ah way badan yihiin baan rabaa inaan in yar mid walba sakana dul maro oo challengeska iyo dhibka inaga haysta qadiyada wasiirada golaha wasiirada culayska uu leeyahay iyo khaladaadka jira. midda koowaad ee daraasadu wax ka tilmaantay waa tira badnida. marka su-aasha meesha taala waxa weeye see la isu waafajin karaa tirada mararka qaarkood waxaa keenaya 4.5kii qolo walba meesha inay iska aragtay rabta. on the other side dhaqaalihii iyo financegiina inuu waafaqaa rabaa oo dee kullama ay sii bataan wasiir walba portfoliyadiisa iyo maxaa wuxuu u baahan yahay kharashkiisa oo culays buu ku noqonayaa shacabkii iyo dalkii iyo miisaaniyaddii. dhinacii kalena qolo walba xillada annaga oo laga tegay waa in marka tirada marka in la iswaafajiyo numberka in la yareeyaa fiican. laakiin waxaa imaanaysa inay dadka qaarkood dhahaan we are left out, there's no representation for us, annagu cidina meesha nooma joogto. sidii la isu waafajin lahaa marka waa su-aal meesha taalla iyo dhaqaalihii. ta labaad competencyga runtii
iyadoo iyadana laftigeeda 4.5 ku dhisan in wax laga bedelay u baahan tahay oo criteria loo sameeyo qofka wasiirka noqonaya uusan ama prime minister iska soo xulan ama madaxweynuhu ama aan la qaybsanin waa la qaybsadaa sidaynu naqaano realistically speaking war intaa qaadana intaa isi ee ay noqoto based on competence oo ah qofka aqoontiisa waxbarasho herkee bay gaarsiisan tahay khibradiisu herkee bay gaarsiisan tahay wax la taaban karo tangible ah oo la tigarayn karo oo la dhihi karo caddayntii qofka keen haba ku yimaadaan 4.5 laakiin in laga keeno qolo walba qof competent ah laga keeno oo track record kiila iyaduna waa muhiim ta saddexaadna waxa weeye aan isleeyahay one of the most difficult issues waxa weeye daraasadana xustay waxa weeye conflict of interestiga baarlamaankan wasiirada ah waxaan aaminsanahay inay tahay arrin aad iyo aad u xun isla xisaabtankiina meesha ay ka saarayso sideed u noqon kartaa alxaakim walmaxkuum kii la xisaabtamay kii wax la xisaabtami lahaabaa adigii ah 70 wasiir baa fadhiya baarlamaankii ugu dambeeyey oo wasiiraya wasiir ku-xigeena yaa la xisaabtamaya ninkaad la xisaabtami lahaa isagii baaba isu codaynayaba taa marka totally in laga saaro ayay noqonaysaa haddii la rabo dowlad wanaag iyo inuu waddankan meeshaan uu ka gudbo marka ta kale oo daraasada ay xustay oo aad iyo aad muhiimka oo waxa weeye ugu dambaysa cabinetkan kale ee aan cabinetka saxda ahayn ee hawsha wadaa ama kitchen meelaha qaarkood kitchen cabinet baa la dhahaa waana issue aad iyo aad u weyno wasiiradii legalka ahaa ee fadhiyey kuwa aan ahayn oo gadaal ka soo kariya wax ka soo kariya loo keenaya wax maaragtay la soo kariyo baa leeyahay gacanta taaga oo mariya marka qofkani waa iska rubber stamp sida la sheegay taana waa inay meesha ka baxdaa I think waxaan isleeyahay labada qodob baa ugu sii daran questionku marka waxa weeye daraasadii way xustay dhibkii jirayna way xustay solutionna way soo bandhigtay laakiin waxaa meeshii ka maqan implementation hadan waa think tank idinku executive iyo authority midna ma lihidin marka waxaan rabaa inaan ku daro in baarlamaanka legislations lagu bushgareeyo oo ragga qaarkood moshino ku wajahan arrimahan sidii wax looga qaban lahaa through legal means wax looga qaban karaa marka taa in lagu soo dhameeyaan ayaan ku talin lahaa insha Allah mahadsantii assalaamu calaykum waa mahadsantiin runtii dadka iga horeeyay baan la qabaa fikradda ah mudnaanta iyo xilliga ay kusoo beegantay daraasadan although aan isleeyahay dooda inaan mar hore bilownay ahayd because baahida iyo waxa aan ka hadlaynayo dhan hadda horey u taagnaayeen wax hadda yimid ma ahan laakiin waxaa la yiraahdaa inay soo daahaan baa dhaanta inaysan weligood imaan marka waxaan rabaa runtii waxaad u malaysaa annaga qaabka oo dowladaheenu ay u dhisan yihiin ama ay u qaabaysan yihiin mararka qaarkood horta sharciga banaankiisa in lagu shaqeeyo oo xeerka la daba maro way sahlan tahay waxaanad u malaysaa dhaqankeena iyo qaabka aan u fakaraynaa wuxuu u caawiyaa in madaxdu ay ka tallaabsato runtii horta qofka la soo doortay baa annaga dastuurkeenu wuxuu leeyahay parliamentary system baan nahay laakiin waxaad u malaysaa dalkii presidential system uu u dhaqmayaa dastuurku hadduu leeyahay parliamentary system aan nahay madaxweynaha in lasoo doortahay because qofka lasoo doortaa mandate lasoo siiyey isagaa wuxuu iska leeyahay isagaa lagula xisaabtamayaa waana isaga waxa keenayo leh anigu saaniyo saanaan wax yeeli doonaa wixii isaga marka hadhow ka hooseeyahay isaga waxay ku shaqeeyaan ajendihiisa iyo policieska uu madaxweynuhu keenay haddaan u baahannahay marka inaan parliamentary systemkii aan ku laabano runtii waxaan u baahannahay dastuurka inaan wax weyn ka bedelno qaabka siyaasadeenu ay u qaabaysan tahay oo aan ahayn structurada adduunka laga yaqaano axzaab baa jirta waxaad u malaysaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wasiiraduba shaqaday isku bartaan horta markaas ay isu yimaadaan wax horoo ka dhaxeeyay oo ama fikir siyaasadeeda ama principally ay ka wada socdeen ma jirto shuruucdii iyo awoodihii kala hagi lahaana qaarna meeshay ka maqan yihiin oo markaan fiirino hay-adihii garsoorka sidii la rabay uma dhisna dastuurkii isagaa contradicting oo timaha isku dhagan
maxaan ku yiraahdaaye ayagii wax hore oo ka dhaxeeyo isku xiro isku guluub gareeya ma jiraan adduunka waxaa jira code of conduct and principles iyo protocols shuruucda garab socda oo shaqala oo maxaan ku dhahaayay hubiya in la joogo ayagiina ma lihin marka taas waxay sahlaysaa maanta dhan inay is haystaan wasiirku waa run waa golaha wasiiradu waa golo maxaan dhihi jiray awood leh oo ay tahay in waxa ayagu markay soo dhaafaan ay yihiin wax la hubo in aad looga soo fakaray oo laga soo fiirsaday laakiin golaha wasiiradu horta marka hore qaabkay wax ku soo gaarayaana waxay tahay ama ayaga qaabkii lagu keenaa waxay tahay markii horeba wasiir juxaana la joogo bahasha aad nooga yaqaano oo usoo joogay laakiin wasiirku marka hore waxaa lagu keenaa inuu yahay inuusan cod lahayn oo miiska waxa markii la soo saaro sidii hadda mar dhaweed la sheegayay wixii miiska la soo saaro ha laga doodo la dhaho inay yihiin wax loo sheegay marka horeba qaabkay u socdaan marka waxaan u baahannahay kow inaan structureski siyaasadeed horta aan wax weyn ka qabano dood ka galno waxaan u baahannahay constitutionka iyo qaabka dowladnimada inaan ayada naftirkeeda wax ka bedelno dhamaystirno shaqalno saddexdaba isugu darno because saddexdaba uu u baahan yahay qodobka saddexaad oo aan rabo inaan ku daro waxay tahay golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada xiriirka ka dhaxeeya hadda ka hor waagan baarlamaanka ku jiray baa maalin qolyo qaylinayo le wasiiradan xildhibaanada ah waana dhibeen baarlamaanka ay yimaadaan oryaa aamusa meesha wax kuma liidin waxaan ku yidhi hadda ma ka keenaa sharci aan kaga saarayno wasiirku inuu xildhibaan noqon karin mayay dheheen because kuwa doodaya birriyay rabaan inay ayagu wasiir soo noqdaan wuxuu marka haddii waxaad u malaysaa sharciyada iyo markaan samaynayna xeerarka inaan u samayno qaab qofku markaas asaga diiradda meesha u saaran tahay iyo si asaga wax ugu shaqaynayaan ee aan loola dhaqmin inay yihiin wax dalkan lagu dhaqi doono way after qofkan hadda maxaan ku dhahaye go-aanka gaaraya marka in go-aanka gaaristiisu ay runtii aan u helna xal baarlamaanku naftirkiisu sida conflict of interestiga hadda laga hadlayo ka jiray golaha wasiirada iyo xildhibaanka wasiirka isku ah ba also waxaa ka jira golihii xildhibaanada oo go-aamo badan oo ay gaarayaan ayagu ay maxaan ku dhahaye rabaan inay hubiyaan in hadhow ayaga hadday soo marto sidii ayagu ay u rabeen ay u jiraan dabcan sida golaha wasiirada ay uga maqan tahay awoodda baarlamaanku wuxuu leeyahay golaha wasiiro asaga u gooniya guddiga joogtada ahaa la dhahaa waxaan mar baan ku jiray guddoonka baarlamaanku wuxuu keeni jiray waagaas markii uu rabo inuu maxaan ku dhahaa markuu rabo horta shirka waxaa la qaban jiray although uu xeroosaadka baarlamaanku uu lahaa khamiis walba in la qabto laakiin shirku wuxuu qaban jiray guddoonku markuu rabo inuu wax dhex marsiisto doodana waxaa loo keeni jiray qaab guddoonku uu rabo asagu in maxaan ku dhahay marka hore oo guddoomiyayaasha guddiyada oo ku jira guddiga joogtada la soo dooranayo in guddoonka inta gacanta si fiican usoo geliyo wuxuu keeni jiray dad asaga saaxiibadiisa oo uu maxaan ku dhahaye baarlamaanka sida xukuumadda uu la xisaabtamayana waxay ku xirnaan jirtay guddoonku siduu hadba ka rabo marka waxaan qabaa eedu waa all around ma ahan hal meel iyo maxaan ku dhahaye inay kale ka jirto marka doodo badanaan u baahannahay iyo daraasado badan in lagu sameeyo dabcan civil society-go heritage iyo institutions oo badan inay u horeeyaan na waa inay ay tooshka ku ifiyaan si maxaan ku rahdaye aysan ugu khasbanaanin dadkii go-aanka gaari lahaa inay iska indhatiraan intay doonaan mahadsantiin waxay yidhaahdaan soomaalidu ninba halkii bugtaa balbashe laba qodob ay rumaan ku dari lahaa oo talo ah golaha wasiirada ee lasoo dhisaayo mid waxa weeyaan waa midda koowaade waxaa doorarkii hore aan arkaynay qurbajoog badan oo ku jira golaha qurbajoog oo dhan ma dhaliilaayo laakiin qaar badan oo bilaataya ah oo intii qurbaha ay joogeen aanan aqoon ahaan isa soo dhisin oo maxay toolay qayb ka ah iyaguna inay sii kala burburto institutionskii dawladdu oo aan wax badan oo faa'iido ah kusoo kordhin oo guryo cadcad iyo gaadhi cadoon ku dhex eryanaya magaalada pointkaas horta in xoogga la saaro oo haddii qurbajooga xitaa lagu soo daraayo dawladda kuwooda maad aragtay waxtarka badan leh qaar badan baanu la shaqaynayo xitaa ribood aan qori karahay laakiin ingiriisi fiican ku hadli karaayo you know so in xoogga la saaro qurbajooga lagu soo daraayo dawladda in ay noqdaan dad waxtar leh oo wadanka lex jeclo u leh ma garanayo qurbaha miyaa lagu soo bedelaa dadka laakiin qaar badan oo kamid lex jeclo badan wadanka kama lahan daanagu wadankaanu ku dhalanay waan dareeminaa dhibkiisa marka qolqoljoogga in xoogga la saaro kuwa wax bartay oo aan la yeesin awoodooda
cunsuriyadana laga daayo midda labaadna waxa weeyaan inamadan maxaa guud ahaan raggaa qurqurux badan suudka xidhan ee siyaasadda isku eryanaya mashaariicda isku eryanaya consequenceska ka dhasha kuwa xambaara waa dumarka waa hooyo abaarahan dhacaya mashaakilka dhan cawaaqibta kuwa u maraya dumar weeyaan dumarka siyaasadda ku jiraana as a female gender mostly ayay ugu jiraan wax badan ma u taraan haweenka waxay ahayd kootada ay ka heleen ama baarlamaanka ha noqoto ama wasiirada ha noqoto inay ku celiyaan haweenka oo ay xuquuqdooda u dagaalamaan midhmidh u orordo hadhadla ugu jira intooda badanna waxay u badan yihiin uun af macaani iyo waxaan madaragtay halkan afka hore dhaafsiisanayn laakiin in qolyaha dambe ee haweenka ah ee kabinetka wasiiradan cusub soo geli doona ay u diirnaxaan haweenka dhiban ee xeryaha qaxoontiga ka buuxa abaaraha kuwa meelaha ay ka shaqeeyaan madaragtay haraasminka badan lagu haayo in maxay toolay ay noqdaan dumar u damqado oo tusaale ahaan anu Malaysian masterteeda kusoo diyaariyey Malaysia waxaan filayaa ugu badan oo managementka iyo meelahaas rasaro oo dhan ku jira haween weeyaan taasi waxay dhaxal siisay wadankii in haweenku xuquuq badan oo xataa ragga aad uga badan ay leeyihiin oo tusaale ahaan hadday gabadh gabood fal geysato ay diidi karto oran karto inay taaban karo ay ma xiri karo oo gabadh askariyada loogu yeedhay qaadaysa inaga gabdhaheena de askar baa meelaha jiidanaysa ragga kufsiga dagaaladan waxa dhan dumar bay mostly saameynayaan wadanka dhanna dumar baa xambaarsan marka labada qodob baan ku dari lahaa in dumar tayalo lagu soo daro golaha qurba jooga lagu soo darayaana uu noqdo qurba joog tayalo laftarkiisu odayaashii iga horreeyey aan ku raacsanahay in maanta madashan aan isugu nimid iyo daraasaadkan aan samaysan ay marxalad muhiim ah ay tahay waxaan yarar akhriyey muhiimadda iyo taariikhda aad soo xusteen oo ah run ahaantii jamhuuriyaddii koowaad kasoo bilaabatay tii labaad iyo tii saddexaad iyo arrinta la ilaabay oo ah maxay ahayd in jamhuuriyaddii koowaad ay lahayd xoghayn golaha wasiirada taasoo marka muhiim ah hadda Dr. Axmed Khayre ayaa xusay reference oo ahaa dowladda Ingiriiska oo kale hadeertaan yani arrin ka dhacday in senior civil servant oo ay ra'iisul wasaaraha su'aalo weydiinayso awoodda ay leedahay taasoo marka accountability-ga iyo ministerial court-ka naftirkiisa yani wax weyn ka taraysa daraasadda waxay cabirtay competency-ga iyo rule based cabinet-ka labadaba muhiim ay inoo yihiin labada muhiimka waxay noogu yihiin waxay tahay inta badan competency-ga iyo qofka tayadiisa iyo sidoo wax u qaban karo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah iyo rule based in conflict mar walba uu jiro sababtoo ah dastuurkii oo aan maxay ahayd tag of war oo xarjiid ah ninba sidoo rabo u fasiranayo oo aan kala cadeen meel lagu kala baxana ahayn laakiin ani labada arrimood ma aha marka arrintan raba inaan xuso oo muhiimadda ah 20 sano la soo dhaafay oo dawladdii kumeel gaarka laga soo bilaabo tii hadda Cabdullaahi Yuusuf ilaahda Allah u naxariiste tii cartay yani shu'uun gaaray lahayd dhaqan siyaasadeed baa abuurmay oo ah habka lagu soo xulo golaha wasiirada taasoo run ahaantii daraasaadka يعني recommendation kii meelaha muhiimka baan ka akhriyay oo aanan filayn inay xustay dhaqankaas siyaasadeed waxay tahay sidee lagu soo xulaa ra'iisul maxay ahayd golaha wasiirada waxaad arkaysaa wasiir aan dhicin oo wasaarad walba ku xukuumad walba la dhisayba ku jira oo aan track record iyo competence lagu soo xulinay oo ama qolada kale ka qayla dheer yahay ama meel fiican ayuu haystaayo oo in madaxda maamul goboleedyada naftirkooda ay saameyn ku yeeshaan nin walba uu nin wato oo meesha ninkana lagu keenayo ama gabadha lagu keenayo qofkan anaa wata taasna marka aan waxba laga baranin oo mar walba ay tahay sidii wax soo taagnaa marka haddii mar walba ma ogtahay aad laba hal aad ku daraysid isku darayso jawaabtuna laba tahay laakiin wixii hore aad sameynayso jawaab ka duwan ama result ka duwan aad filanayso horta waa arrin cajiiba dhaqankaas sidii lagu baabi'in lahaa ayaa muhiimad gaar ah inoo leh haddii dadka iyadoo xataa 4.5ka aan laga tegaynin qabiil walbaba ama xaafad walbaba dad macna leh gabdho iyo wiilalba way leeyihiin in la soo xuso dadkana maxay ahayd in lagu xisaabiyo wax qabadkooda taas intaas aniga aan ku dar lahaa waa maasantiin السلام عليكم قلب وناكسن magacayga Axmed Hadi ayaa la yiraahdaa laba su'aalood oo kooban qaba aniga mid waxay tahay heritage daraasada ku xigta ablaableynta iyo numberka golaha wasiirada aan u baahanahay iyo maxaa wasaarad noqon kara iyo maxaa wakaalad noqon kara horta waa idinka sugeynaa maxaa yeelay hadda
waxaa haylaad garayseen qodob muhiim ah oo ah caqabada ka jirta cabinetka taa waa qodobka labaad markaa su-aashaan ka qabo waxa weeyaan dalkeena adduunka waxaa ka jira cabinet systemka waa laba nooc mid waa cabinet system oo madaxweyne system uu ka jiro madaxweynaha la taliyo tusaale oo kale maraykanka oo kale oo secretariat wasiir kasta wuxuu leeyahay shaqadan madaxweynuhu u celiya oo kala taliya qolaan parliamentary system weeyaan oo waxa weeyaan collective responsibility bay leeyihin oo waa Westminster system weeyaan annaga nidaamkeena executive-ka waa noocay madaxweynihii iyo golihii wasiirada waa isku qasan yihiin arrimahaas see xalkooda see u noqon karaa بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed cabdicasiis cali runtii bointiyaashii aan nood garaystay ninka odagaaba maaragtay intoodii badnaad iga qaatay xoogaa qofka markuu maaragtay afguracaya waxaa la yidhahdaa ma jecla nin aftahan inuu ka hormaro marka waan uga mahad celinayaa waxaan rabaa laba bointi inaan midna recommendation ahaan aan macadka u siiyo midna aan highlight garayo number 1 waxaan ka sheekeynay golo wasiiro nooc ma ay noqon doonaan iyo tayadoodu nooc ay tahay wasiirku hadduusan accountability uusan helin cid la xisaabtanta laftigeedii tayo walba uu leeyahay shaqadii si la rabay ma noqonayso marka root cause-ka ana waxaan isdhihi lahaa waa baarlamaanka meesha annaga mashaakilka naga haysto waa baarlamaanka tiro yar mooyaane intooda badan ma taqaanaba shaqada ay u joogaan meesha baarlamaanka asagaa laga rabaa inuu sharciga dejiyo asagaa laga rabaa inuu golihii wasiirada la xisaabtamo oo wasiirkii uu leeyahay maaragtay maxaan ku yidhahdaa wax mandate oo la og yahay iyo shaqada uu qabanayo iyo waxa ka soo baxay outcome-ka shaqadaas ay yeelanayso marka waxaan macadkaan ku maaragtay ayadan aan kula talin lahaa in research-kan xiga uu noqdo baarlamaanka laftigooda maadaama meesha madaxweynuhu uu ka yimaado uu baarlamaanka yahay prime ministerka iyo cabinetka cidda ansixinaysan inuu yahay baarlamaanka annaga dad shacabaan nahay wasiirkii waxa uu saxaya waxa uu khaldo inaan meelaha ka dacayadeena maahane si sixitaan kuma lihin oo accountable maaragtay annagu nooma uu noqonayo marka intaasaan maaragtay kusoo gabagayn lahaa mahadsantihin aad iyo aad aad u mahadsantihiin waa macadka heritage iyo aqoon-yahanadaba ee soo diyaariyeyba aadan ugu mahad celinaya ee kuwa panelka joogaba runtii waxaan isleeyahay daraasadan waa muhim sida dadka sheegeen waxaan isleeyahay waxa nuxurka aan oran karaa inay tahay in la helo nidaam sharci oo xadeynaya wasiirada cadadkooda iyo waxay qaban lahaayeen waa asaas labo waxay la tahay waxaa ku jira dastuurkeena sidiisaba yacni mas-uuliyad wadareed ayay golayaasha siinayaan golaha daraasaduna way muujisay golaha wasiirada ayaa hawsha iska leh laakiin uma haystaan wax kastaba waa prime ministerka madaxweynihii isagana hawl uusan lahayn sida la tilmaamay ayuu gelayaa marka waxa aad noogu badatay fikirka يعني soomaalida ku jirta oo ah yani kale talisnimada sadarteed markii hadda la tilmaamayo waxa la leeyahay dawladii Cabdulqaasim dawladii Hebel dawladii Xasan Sheekh dawlad qof baa lagu magacaabay si loo garto qof prime minister kana golihii xukuumadda lama dhahay waxa la leeyahay ra'iisul wasaarihi baa saayiri marka waxaan u maleeyaa golaha wasiiraduna sida ayay yani rumaysan yihiin waxadii laakiin sida ku qoran حتى مدحوينها يا برايم مينستر كارنتا كونفليكت laga sheegay inta badan waxay sheegaysaa golaha wasiirada wuxuu soo wada ansixiyay ayuu madaxweynuhu la rabaa inuu hawl ka qabto marka intaas la rabaa inuu saxiixo marka ma jirto golo wasiiro oo wada jira prime minister sareynta sharcigana waa la tilmaamo waxa ugu muhiimsan marka seen u abuuri karnaa dhaqan siyaasadeed oo sareynta sharcigu asaas ka yahay waxa la sheegay uu fiican yahay see loogu dhaqmi karaa ayaa ugu muhiimsan maanta waxa anaan la yaabay hadda oo yani gudoomiyihii baarlamaanka ayaa waxa la yiri wuxuu qaabilay safiir hindi wuxuu kala hadlay sida waxyaalaha badan xildhibaanada loo daaweeyo sida waxyaalo badan loo sameyn lahaa sida ciidanka waxa looga sameyn lahaa waxaas oo dhan ayuu Soomaali walba waan arkaynaa
war maxay xukuumadda leedahay maxayna leedahay baarlamaanka uu leeyahay isku dhexyaac weyn baa yaalla aan waxaan leeyahay saraynta sharciga asaasa iyo dhaqankeenna oon ka saarno dowladdii siyaad barre allahu naxariiste ee tagtay oo laga saaro waa mahadsantihiin soo saaray aad baa mahadsantihiin banalka iyo akhyaartiga horeysana waa u mahadcelinayaa waan soo koobayaa oo akhyaartii baa qaadatay hadalka inta badnayd dooda meesha taalla oo ah golo wasiiro oo karti leh haddana sharci haysta waxaan isleeyahay waxaa u sababa 3 arrimood in inta badan la heli waayo ma jirin macnaheedu maaha laakiin in la xoojiyo baa laga hadlayaa midda koowaad waxaan isleeyahay waxaa u sababa madax ka noolnimada dowladaheena oo ay inta badan ku dhisan yihiin oo ah awoodii kor jirta ilaa heer madaxweyne ay awood taallo waxaa tusaale u ah maalmahan waxaa laga hadlayay barnaamij ku saabsan xajka shacabka Soomaaliyeed waxay fariin u dirayaan madaxweynaha waxaa ka dareemi kartaa in awoodii ay wali kor jirto oo aad dareemaysid in madaxweynaha la gaarsiiyo heer uu ka hadlo wax u yaala shaqooyin hoose oo wasaaraduhu ama wasaarad ama wax ka sii hooseeya ay qaban lahaayeen ama guddi taa waa qodobka labaad baarlamaanka noqonaya xukuumadda oo ayagii meesha isla xisaabta kala imaan lahaa ay golihii wasiirada galayaan ayadana waxaa tusaale u ah inaan soo aragnay golo wasiiro oo baarlamaanka dhexdiisa xildhibaano ah oo ra'iisul wasaarihii ridaya inta jeer aan soo aragnay oo ayagu ka dhex arkaya dantooda ama conflict of interest laga hadlay waxaa kaloo sabab u ah in madaxweynaha kale ama ra'iisul wasaaraha ay ku xiriirsan yihiin team aan golihii wasiirada ahayn baarlamaankiina ahayn oo mararka qaarkood soo aabulaya wax iyaga dantooda u ah runtii arrimahaasi waxay wiiqayaan awoodda golaha wasiirada ama wasiirku iska leeyahay taa waa xagga sharciga xagga kartidana waxa saameyn u ah qabiilka oo inta badan aan aragno iyadoo leeyahay qabiil hebel waxay lahaan jireen wasaaradaha eeda ah waxaa laga yaabaa inuusan ka imaanba shakhsigii wasaaradda noocaasa qaban lahaa marka inta badan shaqooyinka waxay ku imaadaan shaqada iyo qofka shaqada la hor qeexaa sidaan aragno kadib markaas waxaa la geeyaa qualification qof iska leh wasaaradda u qalmo marka anu waxaan dhihi lahaa kow horta in golo wasiira oo awoodooda ay qeexan tahay la helo waxaan maqli jiray geela oo kale geela qiyaamaha la tusaa moogtahay awoodiisa sida aan aragno inta uu adduunka joogo ilmo yaraa hogaansada awoodiisa ma arko marka waxaan ku talin lahaa kow horta in golaha wasiirada laga saaro xukuumadda waa qodobka labaad awoodda in la daadajiyo oo delegation of authority ay imaato oo ra'iisul wasaaruhu uu awoodda ku wareejiyo wasiirku uu asaguna hoos daadajiyo oo ilaa agaasimaha guud agaasima waaxeedyada maamulada degmooyinka gobolada halka ay shaqada aado si macnaha shaqada u socoto oo kartidana u soo baxdo qofka haddana qofku og yahay inuusan shaqadii u waayaynin inuu shaqadii daadajiyey aad baa umahadsantihiin magacaygu waa faadimo cabdi cali ku-xigeenka xogayaha joogtada xafiiska wasaaraha dabcan inta daraasadu socotay wax badan aan runtii kala soconay markii ay soo baxdayna wax badan ayaan ka faa'iideysanay xafiis ahaan macadka heritage waa mahadsan yahay weliba waqti munaasaba oo runtii munaasab ku ah in xog sidan oo kale la helo oo wax lagu dhisi karo ayay soo bandhigeen runtii waxaan rabaa sida dad badan oo halkan ka hadlayna aqoon-yahana iyo wasiirro hore iyo runtii khubaraba ay u sheegeen inta badan problemka jira ama caqabadaha dowladnimada Soomaaliya ku xeeran ama dowlad dhiska ha noqoto qaab dhismeedka ha noqoto qaabka fulinta intaba waa la sheegay oo runtii wax badan kuma dari doono laakiin waxaan rabaa inaan wax yar idinka update gareeyo dadaallo ka socday xafiiska wasaaraha muddadii sanadka ahayd iyo bar ama ku dhawaadka 2 sano hadda wasaaraha Maxamed Xuseen Roble uu joogay cabinetka markii la dhisay inta aysan la wareegin wasaaradaha waxaan runtii qabanay kulan 2 maalin oo wasiiradu dhexdooda isku wareysanayeen ka hor intaysan wasaaradaha la wadaagin marka waxaa ka mid ah barnaamij in loo jeediyo markaa mudnaa oo khubarad diyaariyeen oo ahaa TOR-ka wasaarad kasta si xafiiska wasaarahana culayska uga dago wasaaraduhu iyo wasiiraduna isku fahmaan
marka nasiib darro ma hirgelin in barnaamijkii TOR-ka wasiiradii loo jeediyo markaas isqabqabsi ka jira wasaaradaha qaar ilaa 8-9 wasaaradood oo runtii shaqooyinkooda iyo qeexitaanka howlaha istiraatiijiyada u yaala awgood aysan kala caddayn marka sanadii barka hore waxaa noo soo baxday inay muhiim tahay in khubaro kale loo saaro oo ku xeel dheer dastuurka iyo shuruucda waddanka ilaa 1960 xukuumadaha sidii usoo shaqeynayeen ilaa iyo wadamada deriska ama wadamada sideenoo kale ah nidaamka federalismka isticmaala waxaa la diyaariyey ama dib loogu laabtay ama dib eegis lagu sameeyey xeer hoosaad markaas golaha wasiirada isticmaalayeen oo ilaa hadda la isticmaalo oo laakiin u baahan dib eegis iyo dib u ansixin aan rajeynayna insha Allah in golaha wasiirada cusub ay ansixin doonaan oo si casri ah oo runtii nidaamsan loo diyaariyey cabinet marka manualkaas wuxuu qeexayaa sida cabinet business process-ku uu socdo ama golaha wasiirada shuruucda loo keeno ama runtii ay u doodaan ama xogeenadoodu ay u shaqeeyaan markay timaado howlwadeennada runtii oo qodob muhiim ah oo inta badan dowladnimadeena ama la hilmaamo ama aan lagu talagelin inta badanba oo hadda daraasada ku jirta runtii aad bay noo dhiirigelinaysaa tira ahaan iyo tay ahaanba hadda ma jiraan runtii xogeenno ku filan oo ka shaqeeya xafiiska cabinetka hadda xogeyntuu leeyahay waxay ku beesgaraysan yihiin nidaamka guddi hoosaadyada golaha wasiirada oo runtii 4 guddi hoosaad oo guddiga dhaqaalaha iyo guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga siyaasadda iyo guddiga amniga u kala qaybsan marka xogeenadu tira ahaan iyo tay ahaanba waa runtii meel u baahan in kor loo qaado dadka aqoon-yahanka ee dhallinyaradana waxaan ku dhiirigelinayaa intii runtii xilal waaweyn oo runtii ilaa heer siyaasadeed ah la raadin lahaa waxaa muhiimsan in meelaha muhiimka u ah waddanka gaar ahaan fulinta howlaha hortiminta u leh dalka in la aado oo halkaas shaqo laga raadiyo marka shaqo badana waddanka u bannaan meelahaas in la xoojiyo aqoonta iyo cilmiga iyo tayada intaba lagu dhiirigeliyaan soo jeedinayaa waxaa jira qodob aan isleeyahay waa muhiim in heritage ay waqti geliso daraasadan midda ku xigta waa golaha wasiirada marka la dhisayo waxaan aragnaa in lagu jaangooyo intaan wasaaradda maskaxda lagu hayn waxaa qofkii maskaxda lagu hayaa oo runtii wasiir hebel wasaaraddu ku fiicnaan lahaa in markaa la jaangooyo la dhisaa laga yaabaa ama wasaaraduhu lagu dhiso hab ku salaysan mashaariic oo meesha ay dhaqaalaha ka heli karaan marka wasiirkii qofkii ama shaqsigii wuxuu dooranayaa halka asaga ku habboonaan lahayd ama ha noqoto madaxweynaha saaxiibadiisa ama ha noqoto wasaaraha dadka u dhow ama ha noqoto dadka markaas saameynta siyaasadeed leh marka intii mashaariic laga fikiri lahaa ama shakhsiyaadka laga fikiri lahaa marka hore sidii walaalkay igu horreeyay uu sheegay in shaqada la qeexo hay'adda la qeexo institutionkii la tayeeyo la soo bandhigo marka annaga waxaa noo qorshaysan xafiis wasaare ahaan wasaaraha cusub markuu yimaado in lagu wareejiyo draft hadda la final gareeyey oo cabinetka hadda jira ay ka gaari waayeen oo ahaa organizational ordinance oo madaxweynaha iyo wasaaruhu ka heshiin doonaan oo in cabinetka la geeyo oo la ansixiyo waa runtii inta badan wuxuu shabahaa government actigii 1960gii waa ku dheeraaday marka kaa wuxuu caawin doonaa in wasaaraduhuna wax permanent ahaadaan structure aan isbedbedelin oo gurguurin oon mashaariic ku salaysanayn in laisku raaco oo la waafaqo baarlamaanka la geeyo oo la ansixiyo si tayada iyo howlwadeennaduna hoos u shaqeeyaan marka ilaa heer agaasime nidaam ku dhisan ayaa laga fikirayay oo ahaa in agaasimayaasha waaxaha qaybaha inaysan isbedbedelin oo wax maaragtay joogto ah oo waara ay noqoto ugu dambeyntii heritage waxaan usoo jeedinayaa in daraasadda xigta ama haddii ay fiiro gaara u yeelan karaan in ayadana daraasad lagu sameeyo habka dhaqaale ee golaha wasiirada dowladda Soomaaliya waxay ka helaan runtii dakhli inta badan u badan qarashaadka xafiiska mushaaraadka iyo waxyaalaha kale sababtoo waxaad dareemi kartaan waddankeena dhaqaalihiisu halkaa ma gaarsiisna laakiin mashaariicda iyo howlaha kale ee wasaaradaha la rabo inay fuliyaan waxaa laga helaa deeq-bixiyaasha marka inta wasaaraddu mashruuc yaallo laba wasaaradna ay isku qabsanayaan TOR-ka waxaad moodaa in halka la joogo aan hore looga sii socon karin marka helitaanka hab dhaqaale oo waara oo ku filan baahida iyo golaha wasiirada inay heritage ka fikirto oo isla markaa ay daraasad ku sameeyaan ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed ama dadka aqoon-yahanka ah ee dheergaradka macaahidda kulli isla xisaabtanka in laga bilaabo agaasimaha waaxda ilaa degmada haddii magaaladan problem yaallo in maayarka magaaladan iyo guddoomiyaha degmadaas la joogo la weydiiyo
si shaqadu uga yaraato wasaaradaha ilaa xafiiska ra'iisul wasaaraha waa sax xafiisyada ay kore ay shaqada inta badan kusoo aruurtay waxa keenayna waxay tahay runtii khayraadka iyo waxyaalaha runtii ku salaysan mashaariicda ama sida hadda lagu shaqeeyo qaab dhismeedka marka haddii la helo qaab dhismeed waara oo aan isbedbedelin dadku waxay u guuri doonaan wasaaradaha waana rumaysanahay in xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inta laga guuro loo guuri doono wasaaradaha kala duwan iyo hay'adaha ilaa dawladda hoose oo haddii nidaam wanaagsan oo dhaqaalaheedu miisaaniyad sanadeedka ku xusan oo tayadeedii shaqaalaheeda la yaqaano marka waa mahadsantihiin insha allah waana idinka rajaynaynaa daraasado wax ku ooloo dhisa dowladnimada iyo dalka qodobada meesha lagu soo qaaday way badnaayeen aniga hal mid baan ka soo qaatay midka ugu muhiimsan oo ah meeshii laga bilaabi lahaa maartay xukuumaddan hadda la dhisaayo prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha iyo magacaabistiisa iyo arrintan kaleeto ah maxaan ku rahdaa tayada wasaaradaha sidii looga hadlay oo aad muhiim u tahay laakiin waxaa ku jirta iyadana soo jeedinta warbixinta ku jirta in laga wada dhigo dad banaanka ka yimid maartay أنا waxaan qabaa xoogaa haddii aan waaqici noqono waxaas way adkaanaysaa maartay marka in la helo qaab la isugu dari karo oo laga soo leexiyo meeshii ay u badnayd oo ahayd in laga wada qaato baarlamaanka in maxaan ku rahdaa la isku dhafo qaabka la isu dhexgelin karana ha lagu yareeyo ayaga ha lagu yareeyo laakiin inaan banaanka laga wada dhigi karin baan qabaa maartay بسم الله الرحمن الرحيم لبا erey baan dhihi lahaa mid waxa weeye qodob la sheegay oo ah inay soo badanayso awoodda dadka aan ka tirsanayn xukuumadda oo siyaasadda ku soo badanaya ama dadka saaxiibada kooxeedyada ah arrintaas waa cilad loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado ilaa dowlad federaal iyo dowlad goboleedyada way jirtaa dadka ka baxsan oo badanaa markastana saameynta ku leh arrintaas waa arrin u baahan iyada ruuxdu daraasad iyo isdul taagid qodob kale oo ah nidaamka aynu qaadanay waa nidaam parliamentary system baynu haysanaa laakiin systemkeenu haddana waa isku dhaf sida professorka uu sheegay waa hybrid system baan haysanaa arrinta is haysashada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahana ma qabo inay u xun tahay sida loo moodayo mar walbaba inay u xun tahay waxaan ku jirnaa post conflict baan ku jiraa doodaha Soomaalidu waa daldalan yihiin dastuurkeenu ma dhamaystira dhinac marka laga eego inay isdheeli tiraan oo dooda la isku haysta qayb bay ka tahay haddiina la eego dowladihii soo dhalanayay aan eegno tan ugu dambaysaba aan eegno 3 sano iyo bar madaxweynaha ra'iisul wasaare Saaca Shaqsan baa joogay maxaa xumaaday sanadna ra'iisul wasaare iyo madaxweyne isxakameynaya ayaa joogay taa ruuxeedu marka waxay u baahan tahay dalac naasilka meesha in laga eego marka qaarkood waxaan moodaa xalku inuu ku jiro ama xalku ku jiro dooda adag oo dhex taala ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sidaas oo kale marka madaxweynaha ama baarlamaanka iyo xukuumaddu isku milmaan oo dheel lagu yimaado khatarta weeye laakiin marka baarlamaanka iyo xukuumaddu is haystaan ama garsoorku uu shaqeynayo aad bay xal u tahay maamul goboleedyada waa saas oo kale weeye marka baarlamaanka uu wiiqan yahay oo madaxweynuhu saqlaynayo wax badan baa dhuma marka dooda ah in debate jiro oo la is haysto dad oo yaan la dhibsan marar badan xalka ku jira inta xayndaabkaas lagu doodayo marka arrintaas waxay iga tahay anuu maaragtay baraarujin inaan cilada laga dhigin madaxweynaha ra'iisul wasaaraha haysa marka taladuna gacan qura markay ku ururto ayay ugu xun tahay waayo gacantaas qur ah oo taladu ku ururtay waxay noqon doonto cidina ma oga intaas uma rabaa inaan sheego waxa uu anigu aynu rabnaa inaan isxasino mararba wax walba sababaha wuxuu xumaadaan caadiyan shakhsiga maaha waa xaaladda innaga problemkeenu dastuur keliya maaha dowladnimadeena baa kala dhantaalan dastuurkeena iyo choicekeena iyo rabiteenkuna waxay sheegayaan nidaamka xisbiyada badan multiparty system inaan ku dhaqanno asagii ma jiro haddaan asagii jirinna prime ministerka wuxuu noqonayaa nin agoona oo meel iska joogo lasoo qaatay oo aan power ku lahayn minority aan baab xataa minority ahayn keligiis ah marka ma heli kartid prime ministerka aan sheegayno oo prime minister baarlamaanka majority ku ah muxuu ahaayey ilaa magacraabidda nidaamyada barlamentariga madaamida magacraabidda madaxweynuhu waa formal liidarka xisbiga aqlabiyadda ah ayuu wuxuu oranayaa soo dhis xukuumadda in ordinary parliamentary system haddii waxaa kaloo jira ayana hadday dhib dhacdo nidaam garsoora oo
xeer beegti ah oo kala saaraya ma jiro marka basiskii dowladnimada baan inoo waxaa samballa guud baanu ka haysanaa weliba maaha kuwii ugu muhiimsanaa waa ina ka maqan yihiin marka xoogga aan saaro sidaynu ku dhammaystiri lahayn nidaamkeena dowladnimada hay-adeena ama rukniyadeena dowladnimada inta taas u maqan tahayna saasaynu u cataabi doonaa ani waxaan isleeyahay khilaaf ama dhibab laga sheekay calaamadihii oo jirada laakiin wixii sababay ma aha soomaaliya dowlad ayaa ka jirtay way burburtay soomaalidu weli iskama warsanba sababtii inooga burburtay dowladdii hore macna ma aan iska warsanba macna maxaa naga qaldamay iyo sideen u saxnaa dib heshiisiinna maba samayn waa midda koowaad tan kalena ani waxay ila tahay heshiis ma ku nihin dowladnimada aan rabno oo soomaalidu weli macna maba ka heshiinba oo hadda dastuurka qabyo waaye waxyaalaha u rahman yahay waxay heshiis siyaasadeed loo baahan yahay in laga heshiiyo macna marka intaas markii soomaalida mahmaayada waxay ahayd markii oo heshiiskaas u dhaco oo aan intaas isla waafaqno macna arrimahan kale way sahlaanaysa ila tahay aniga macna ani waxaan markasta ku celinaa inkastoo dhinaca qaanuun ka imaanayo haddii saraynta oo sharciga ay arrinta koowaad noo noqoto oo tusaale ahaan laakiin wax walba laga fiiriyo qaanuunka inta yartoo noo qoran aan hirgelino wixii naga dhiman aan samayno wax badan inoo socdaan laga yaaba maasante asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qofaa wuxuu ka dhawaajiyay hadday in problemka inuu yahay 4.5 inaa wasiirka lala ekeysiinayo actually ani uma malay 4.5 ka inay tahay mushkilo maybe dadka qaar inay farxaan haddii la dhaho 5 ka waran maanta haddii oo 4.5 ay jireen madaxweynaha waxaa huba intaa ka aqaano shacabka soomaaliyeed inay ayaga isla ekeysiin lahaayeen inta wada socoto isku qabiil noqon lahaayeen sufaraada qanaasilada wixii dhan ayaga isla ekeysiin lahaayeen maybe inay badbaado ahayd waxaa la dhahay ummad walbaba mushkiladeeda xalkaa ka imaado soomaalida marka isku dagaaleen qabyaalad xalkii wuxuu ahaaday in xal ka dhigtaan inay qabyaalad ku heshiiyaan ilaahana naga dhigay qabaa'il marka ma dheeraanay dad oo wada professora ag fadhiya intaas ka badanna maba ii furna insha allah tacaala umaas